كل وعنا وناسنا قيرتها ودن الله احتال كان وبرتيتي كلنا مربنا قل سocotana xubso qaadona xaaladaha Awdal State iyo Salal oo aad u kacsan iyo cabsi dagaal oo halkaas ka jirta ay soo qaadona dawladda Itoobiya si toos oo la saftay beesha Ciise Samaroon oo markaas hubka ugu tira badnaa la soo galay gobolka Salal ay soo qaadona Cabdiraxmaan Cirro oo asaga sheegay inuu tagi doono magaalada Saylac ay soo qaadona dawladda Itoobiya Eritrea xaaladoodii Masar oo la sheegay in ayaduna markaa gadaal ka riixayso dagaal Itoobiya Eritrea dhaxmara ayaan soo qaadona koonfurta Soomaaliya iyo shirka ka socda ka dhici doona magaalada Kismaayo ayaan soo gudbi doonaa oo Axmed Maxamed Salaah Axmedobe oo mar kale 18 bishan sheegay inuu qaban doono shirkii mucaaradka Soomaaliya arrimahaas oo dhan soo gudbi doona barnaamij shirgareed meel Gaarsiye waxa barnaamijka ugu sugan Fargooda Rawina Xaweydiyo Fargooda barnaamij ku soo dhawow beesha Ciise waxay rukub dhacday magaalada Saylac iyo magaalooyin kale ee gobolka Salal beesha Samaroona kama foga oo ciidana gobolka Awdal xadka Salal kala wadaagto ay soo gashay cabsi weyn oo dagaalna way jirtaa Cabdiraxmaan Cirro waxa la sheegay inuu wafdi u diray dhanka iyo Saylac waxay kula tahay waanta mas'uul gali kartaa wafdigan wax ma soo kordhin karaan dagaalka labadan beelood ma dhici karaa maxay kula tahay horta gooni aad baad u mahadsan tahay waxa kale oo mahad celinayna guud ahaan bulshooyinka Soomaaliyeed labadan beelood ee walaalaha ay wada daga gobolada Awdal iyo hadii bay ku soo mogolyaa Salal Awdal de waad garanaysaan beelweynta Samaroon baa dagan laakiin hadana laga dhaxwaay maayo wax soo dhex dagan ama isaaq oo dhex dagan way Soomaalidu gabi ahaan way dhex dagan marka saasaan u leeyahay labada beelood ee wada dagan ama Saylac iyo gobolkaasi Salal ayay wada dagan yihiin waana dad aad iyo aad isugu dhaweeyay horta labadan beelood hadii uu ahaan lahaa dagaal qabiil oo labadooda kaliya haduu ahaan lahaa oo dhul isku haystaan ama magaalo isku haystaan haduu gooni u ahaan lahaa hawshu fardaamin bay lahaan lahayd wana iska fududaan lahayd labadan beelood waxay degan yihiin dhul istiraatiiji ah waxay degan yihiin dhul dahabku aad ugu badan yahay daraasad la sameeyay waxay degan yihiin dhul hadii bahay ku samogoliya aganay degan yihiin waxay degan yihiin dhul shidaalka iyo khayraadka kale uu ku badan yahay nin aan saaxiibanahay oo iga sheekeynaya xilliga barasamaadkii waa meesha kaliya ee wuxuu aanu 30 sano ka hor ba igu dambeysay wuxuu gooniyo waa meesha kaliya ee aan ku arkay buuri caws gobolka wuxuu yiri Salal caws la harsanayo qorraxda aad ka harsan karta dheerarkiis maxay ku tusinaysaa cawskaas soo dheeraada iyo agankaas wuxuu ku tusinayaa yacni macdanta ku jirta faraheedu ku tusinaya ama dahab ha ahaato ama waxyaabaha kale maxaan ku dhahay gemstone ka noqoto ama shidaal ha noqoto meel walba oo sida maxaan ku dhahay macdan badan aan la qufanin oo ku taala meelaha kale way ka khayraad badan tahay wayna ka agansan tahay aanu soo gudbo dagaalkan la wado ee la karkarinayo ee aad loo maxaan ku dhahay loo hadii bay ku soo loo karkarinayo gooniyo waa dagaal dawladda dabada ka riixayaan imaaraadka ku jira waxa ku jira hadii bay ku soo mogolyahay Itoobiya ku jirta dawlad deegaanka Soomaalidu Itoobiya had iska haysato ay ku qadaabanaysaa ku jira iyo Mustafa Cagjar baa ku jira marka horta labada beelood haduu dagaalkoodu ahaan lahaa dagaal ka ay ka madax banaan yihiin maxaan ku dhahay dawladda kale waa laga yaabi lahaa inuu istaagi lahaa laakiin hadda waxay u muuqataa inuu soo istaagin oo labada beelood isku dhufan doonaan gudiga la diray maxaan ku dhahay labada beelood ba raba inay la wada hadlaan ee xaqiiqo raadinta iyo nabadda doonaya gudigu waxay la tahay inay dadaalahayaan inuu Ilaahay tawfiiqda intuu waafajiyo ay labada beelood ay kala maxaan ku dhahay la kala badbaadiyana aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan raadiyay telefoonno kala duwan baan raadiyay dad ka madax banaan labada beelood Ciise iyo maxaan ku dhahay beelweynta Samaroon ayaa raadiyay waxa la ii sheegay gooniyo arrimo cajiib ah la ii sheegay arrimaha cajiibka ah ee la iga sheegay gobolkaasi Salal intiisa badan horta beelweynta Ciise waagi hore anigu sidaan moodahayay waxaan moodahayay antuuga yar baan moodayay yani dad aan badnayn baan moodahayay oo gobolka degan nimanka Ciise la leeyahay gobolkaasi Ciisaha gobolka City degan iyo midka Djibouti degan hadayna ka badnayn way la egin hadayna ka badnayn waa dad aad u fara badan way maalin dhaweyd halkan waxaan ka baahiyay waraaq la ii soo diray oo ilaa iyo 80 tuulo iyo degmo isugu jira oo maxaan ku dhahay dhul ilaa 200 kilomitir oo isku weera haduu sakaba badnayn dheer ahaan 200 kilomitir gaarahaya ayay degan yihiin intaas oo tuulo iyo intaas oo degmo marka lix kamida waxa degan gobolka Salal lix kamida waxa degan Samaroonta degan waa gobolka Salal laakiin 70 iyo dhowr ilaa 80 tuulo iyo degmooyin iyo magaalooyin waxa degan beelweynta Ciise baa degan marka horta meeshu meel dhow ma aha beeshu waa beel balaaran dhul balaaran bay degan yihiin waxa kale oo la xaqiijiyay
xilliga ingiriiska ayay labadan beelood yimaadeen baa leeyahay waa ila madax bannaan baa wareystay isaaqa iyo beelweynta samaroonba xilligii waxay yimaadeen baa la yidhi ingiriisku markuu ka talinayay somaliland ha ayay labaduba yimaadeen baa qaarna waxay ku yimaadeen askar oo waxay la socdeen baa la yidhi ciidankii askarta maxaan ku dhahay ingiriiska la socdeen qaarna ganacsi bay u yimaadeen oo ganacsi bay ahaan bay ula socdeen laakiin waxaa la yidhi oo la ii xaqiijiyey ama bari ha noqoto ama koonfur ha noqoto ama waqooyi ha noqote magaalada Zaylac miyigeeda waxa ku soo aroorhaya ee xoolaha keena ee dhuxusha keena ee waxa lagu qash ee caanaha keena ee cawska keena waa ciise magaalana waxaba lagu yaqaanaa dadka miyigeeda kaga soo aroorhaya degan cidda ay tahay baa laga taxaa dadka keena baa magaalada askari marka hadda waxaa la ii sheegay oo kale isaaq laftiisu magaalada Zaylac markii la yiraahdo ganacsiga ugu badan inay ku leeyihiin habar awalnimo la dukaaman iyo ganacsi ugu badan ku leh nimankan Samaroona sida ay nimankan ugu leeyihiin ayaguna ugu yeeshaan u dageen baa leeyahay ayaguna taas kale ahaayeen meel gaar ah oo isaaqa waxay kaga duwan yihiin oo gaar ah oo gaar ahaan u leeyihiin ma jirtaa leeyahay hadda tusaalaan hadii la yiraahdo magaalada Boorame ciise askari dawaa khalad ciise male magaalada Boorame Samaroon shaqa kuma la Samaroon askari marka waxaan soo ogaanay in magaalada Zaylac annaga labadan qabiil uma kala hiilinayno laakiin xaqan ku adimaynaa noomana kala sokeeyaan sida hadda tusaale ahaan hadduu beelweynta ciise ay sheegtaan gooniyo magaalada Boorame hadday sheegtaan waan u hadlaynaa waxaan leenahay magaalada Boorame iyo gobolka Awdal adeero waxa ku horkaadiya nimanka la yiraahdo maxaan ku dhahay Samaroon sida daraadeed markaanu raadinay beelweynta ciise ayaa iskale magaalada Zaylac huha iyo hihaada hal joojiyo dadkii ku noolaanay tusaale ahaan dadkii ku noolaanay ciise way soo dhawaan ciise waa dad goboway cid allo cid ee Soomaali ah ama ganacsi ku samaysanaya ama gabadh intuu ka guursanay dagahaya way soo dhaweynayaan nimankaas saas ay Soomaali nacayb ma hayo laakiin magaaladii maxaan ku dhahaa bahashi ahayd baanu leenahay way horta ciise madoobe wuxuu ka wareeray marka aniga waxaan leeyahay ninaan saaxiibanahay bari beesha ciisana hayga raali noqotee waagan yaray waxaan maqli jiray shalay ku eedeynayeen ha waxay ku dhahayeen Ethiopia ciise soo raacayso arinta qalad ku taa fargudo marka anaga Ethiopia nama soo raacayso uma ogol dhulkeena ku dhahay horta maanta waan ka hadlay waxa weeye barnaamijka hore waan kaga hadlay yaani horta waa digniin way beelweynta ciise waa beel dagaalanta way dagaal Soomaaliyeed oo Soomaali dhexdeeda horta ma gooniyo ma kuma yaani ma raacayno laakiin waxa la yiri waxaad ogtahay ma idin sheega aqoonyahan bay leeyihiin dad wax bartay weeye dawladay dabada ku hayaan wararkana soo gaaraya ila diblomaasiyad naga soo gaaraya ayaa waxay sheegayaan inay suuragal tahay ciisuhu inay kaashadaan yaani Ethiopia anigana xaqiiqatan beelweynta ciise waa dad sharaf leh waa dad karaamo leh aad baan taageersanahay Samarootona laftigeedu waa dad sharaf leh karaamo leh labada beeloodba laakiin aniga war cid soo qaadatay maanta Ethiopia wax la dhaha ma jirtay afguduud maanta cid soo raacdo oo Soomaaliya soo qaada anigu waa karbaashi ama ha ahaato bahashi ama Soomaalida kale weyn ha noqoto ama Hargeysa ha noqoto ama cid kale ha noqoto war Soomaali idinka isku filan idinkuna xal waad gaari kartaan laakiin afguduud intii horeba ku dulkaacaysaaba عديتي iyo camlufi iyo maxaa ku dhulkii iyo garbaciis yaa bixiyay Ethiopia bixisay afguduud bixisay afar ku wareejay ma afar ba yaa ku dhacday inay iska celiso ciisi iyo dawlad deegaanka Soomaalida markii dagaalamahayeen kumayna dhicin cid duqeynaysay ee gantaalada waaweyn ku soo ridaysay ciidamadii dawlad deegaanka Soomaalida ay ka siinaysay Ethiopia ahayd aad farqada ma san tahay oo arki doona wax soo kordho barnaamij shirgareed meel fogaarsiin